waxaa ka socda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland oo maalmihii la soo dhaafay baraha bulshada Soomaalida iyo sidoo kale caalamkaba qabsatay. Waxaa ka jira in ciidamada caloosha shaqaystayaasha ah ee loo yaqaano RSF ee xasuuqa ka wada dalka Suudaan ay saanada iyo sidoo kale ciidamadaba looga dhoofiyo magaalada Boosaaso. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo arrintaas ka hadlay waxa uu ka yiri Puntland oo ka jawaabtay iyadana maxay ka tiri. Sidoo kale madaxweynihii hore ee Puntland Foroole ayaa isaguna arrintaas iyo arrimo kale oo ka mid yihiin ciidamada PNPF ka hadlay. waa kula wadaagaya iyagana balse wax kaa codsanaya inay Turkiga ku soo biirto subscribe dhahda muuqaalka la saarto gambaleelkana furto si ay ku soo gaaraan warbixinada ku saabsan Soomaalida iyo sidoo kale inta badan deegaanada Puntland oo halkan ku soo gudbino. haddii aan ku bilaabo magaalada Boosaaso ayaa waddooyinkii u dhameysay baraha bulshada caalamka haysatay iyada oo leeyahay magaalada Boosaaso iyo maamulka Puntland waxa ay qayb ka yihiin xasuuqa ka socda dalka Suudaan oo ciidamada caloosha shaqaystayaasha ah ee RSF ayay garab siiyaan saanada iyo sidoo kale ciidamadaba halkaas ayaa looga dhoofiyaa. qaar ka mid ah warbaahinta caalamka waxa ay sheegeen in diyaarado sida ciidan iyo sidoo kale saanad la hayo caddeyntoodii halkaasna ay ka dhoofeen. sidoo kale waxa ay sheegeen in arrintaani uu ku lug leeyahay Imaaraadka Carabta oo ciidamadaas taageerayana in xasuuq loo geysto walaalaha reer Suudaan sida ba'an loogu xasuuqay muddooyinkii u dhameysay dalkooda. waxaana la leeyahay magaalada Boosaaso ayaa ah meesha ugu weyn oo saanada iyo sidoo kale hubkaba looga dhoofiyo iyo sidoo kale ciidamadaba looga dhoofiyo. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo dhowaan isagoo hadlay ayaa sheegay in ay arrintaasi wax ka jiraan magaalada Boosaasana ay qayb ka tahay maamulka Puntland ba ciidamada caloosha shaqaystayaasha in saanadoodii iyo sidoo kale hubkoodaba laga dhoofiyo magaalada Boosaaso ayuu sheegay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya. balse dad Soomaaliyeed oo tiro badan oo arrintaas ka hadlay ayaa ku tilmaamay siyaasad xumo meesha u dhameysay maadaama wasiir dhan uu dalkiisa ku tilmaamo inuu xasuuq dal kale oo walaalkiisa uu qayb ka yahay. waxa la leeyahay wasiir fiqi intuu leeyahay madaxweyne Deni ku xumay sidoo kale siyaasad ahaana mahdin u geyso inuu isagu mahdin isku geystay maadaama uu yahay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya. wax walba oo gaashaandhigga ku saabsanna isaga wax laga weydiinayo biri haddii arrintaas ay wax ka jiraan ayaa la leeyahay waa uu ku khaldamay intuu islahaa siciidanina dibindaabiyey isaga ayaa naftiisa dibindaabiyey. dhanka kale Puntland waa ka hadashay wasiirka warfaafinta ayaa BBC-da la hadlay waxa uu sheegay in arrintaasi ay wax kama jiraan tahay. wasiirka warfaafintuna uu arrintaasi ka been sheegayo isagoo ku xumeynaya maamulka Puntland oo uu jecel yahay dhibaatadooda ayuu yiri wasiirka warfaafinta Puntland. waxa uu sidoo kale sheegay in arrintaasi aysan waxba ka jirin garoonka diyaaradaha Boosaasana arrintaas uu ka maran yahay wax ciidana aysan halkaa ka degin oo qayb ka ah dagaalada ka socda dalka Suudaan oo walaalaha reer Suudaan xasuuqa lagu geysanayo. madaxweynihii hore ee Puntland Foroole oo isaguna ka hadlay aqalka sare ee Soomaaliya waxa uu sheegay in arrintaasi haddii ay wax ka jiraan maamulka Puntland uu la xisaabtami doono. balse waxa uu sheegay in xildhibaanada ku matala Puntland oo iyagu sheegay in arrintaasi wax ka jiraan qaar ka mid ah xildhibaanada ku matala aqalka sare oo sheegay in arrintaasi wax ka jiraan. waxa uu sheegay in ay maamulkoodii u tagaaneen arrintaasna ay soo xaqiijiyaan iyagoo aan maamulkoodii tagin waxna soo xaqiijin in ay maamulkii dibindaabiyeen. waxa uu sheegay inay tahay wax aad looga xumaado. wasiirka gaashaandhigga ayuuna sidoo kale waxa uu sheegay in uu isaguna ku khaldan yahay in dalkiisii uu ku caddeeyo in dhibaato isagoo aan hubin inuu ku caddeeyo in dhibaatadaas ay qayb ka yihiin. dhanka kale madaxweynihii hore ee Puntland Foroole ayaa dowladda Soomaaliya ku dhaliilay mushaharka ay u fasaxeen qaar ka mid ah ama ciidamada PNPF ku sugan deegaanada Puntland ama ka howlgalaba haddii aan dhaho. waxa uu sheegay in arrintan mushaharka ciidanka loo diraayo ay tahay arrin khalad ah. dowladda Soomaaliyana ay arrintaasi uga gal leedahay inay ku dibindaabiyaan maamulka Puntland. waxa uu sheegay in arrintaasi hadday dhab ka tahay dowladda Soomaaliya wallow uu sheegay in ciidamada Soomaaliya iyaguba ay u baahan yihiin mushaharka ay ciidamada loo diraayo ay u baahan yihiin ciidamada ka howlgala Muqdisho iyo gobolada dhexe. balse waxa uu sheegay arrintan
ciidamada mushaharka la siinayaba inay tahay arrin dibadaabiye ah oo looga gol leeyahay in lagu dibadaabiyeeyo maamulka Puntland. Waxa uu sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya arrintaasi ay ka waantowdo. Waxa uu sheegay in haddii ay rabaanin in ciidamadan ay mushaharka ana daacad ka tahay inay siiyaanin inay u mari karaanin maamulkooda Puntland isla markaasna iyagu ay siin karaanin. Halkan haddana la soo gaartay marka wax ka codsanaya inay Turkiga ku soo biirto iska leedahay muuqaalka la saarto. Waa mahadsantahay.